وإن وعدي أرن ما أنت قائمة وتاغن ولقد نسو تاغنيد وإن قال أحد لك وقفك مسلم كأه بيكي سولس تطاديو ودهان تدك مسلمين تا خاصة الصوماليين تا وضد مسلمين وأهل قبلة قرآن كي حفظيان قرآن كي أخرستان إلهي بكحريين أمراض كلا جرته وخطر ليكو كما بنانو أدوية شغالة معمول أدوية أسكري أدوية بليس أدوية مدحة أدوية اسم أدوية ددوينة قف مسلمة ليكيسا والله دادي حرام وي وانا المقلس الشيخة يا خضيبك خير الله سيو مرباني سيريا كدب غنيني كآمس كل نقطة دي بقول نقطة نصوص يعني هذا ما أورورين كره وهذا يسوي كهذا لي خضيبك كهذا لي دي بقول نقطة وين دوبان تهاي ووحوانا لقو قاتوي تاسور توامد أنا جو حير كتامنا يا وقت جو عليلية أسباب وحل الوسائش وحل الأداء لها حكم المقاصد مقصدك ودلكي ما لها الله مرو كو وحكا تذكر سلايان قبلي تذكر صومالي دا عبر تاريخ دا ديب الرعدان دقال كأهلي ولقي وسعنجري لكن وحكو رونا ورن يقول الأولجري جكري والإحقاضها ومركو مردعو أتكتوري مارتا ومر لبا دعين بالس كله يجري وحكو قراده استمر كي سوى لليهاي waxay yimid baban ma garanaysaa waxa u jeedaan waxa weey waa kan territoriga u dhacaya baban baa loo jiray anoo yar ma loo wadanka wax soo galay baban waa qoriyay territoriga u dhacay weey mushkiladu waxay dhacday markii dawladii intay dhacday qofkii dawladda qabaa'isha gacanta u ka galay oo ma yaad aragtay qabiil technical wata oo hubkii dawladda ku dagaalamayo dawlad kale kula dagaalamaya qabiil kale waa fitna waxa weeye asbaabta keenaysa waxa kamida waa qabaliyada ama cunsuriyada qabiilku horta waxa weeye waa sharaf weeye qofka in la yiraahdo inay hebel weeye jiribkaas uu ka dhashay reebal buu ka dhashay waa sharaf ilaahay baana inagu amaanay subhanahu qoontaha ilaahay baa qoondeeyay subhanahu wa ta'ala ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ira lita'arafu nabigana korkii la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam man akramu nas atqahum buyid dadka ayaa ugu sharaf badan ayaa laandheera kuwa ilaahay ugu dhow qabiilku doonay ha ka dhasho marka inaga qabaa'isheena waxaynu ognahay qabiilka weyn inuu quursado qabiilka yar waxa kale inuu ognahay qabaa'il gabdhahooga inaan guursanin iyagana inaan ogolayn gabdheena inay guursadaan oo la liida baa jira inaad ogeydeen ma qale 2001 meelahaas idaacada BBC waxay soo deysay barnaamij aad u fiicnaayo loo odhanayay qoorsigu qeyl ma leeyahay in lagu soo celceliyo Soomaali ogaata weey way isleen jirtay marka Soomaalidu waxa kale oo jiray wadaadadii waqtiga joogay way kala raaci jireen bareerkooga bay u taxaliilin jireen oo ugu tufu jireen maxaan ku dhaaday adkaar si reerku ma aragto hubkiisu ugu dhaco qolada kale isayana cadawga isu yihiin bay taxaliin jireen wala safan jireen markaas waxa maahmaadana timid fiqi bahdi kama jannatogo fiqi bahdi kama jannataga la yiri haddana maanta waa sidii iyo wax ka agdhow wadaadada jooga laftoodu ma aha dadweynaha kaliya ka hadlay wadaadiya waralla ka hadlay illa man rahimahullah wuxuu jiray reerkooga kolkii la taabto oo ma inaad jeclaato reerku inuu wanaagsan yahay oo dadka khayrka oo horseedo la liidin waa wanaagsan tahay oo waa tabci oo ilaahay wuxuu dadka ku abuuray weyn kama raadidi kartid reerkaaga wax jabo ama saha noqdo ee waxa laga hadlayaa waxa xunay sameynayaan aad kula safato oo waxa xunay kharibayaan yani difaacdo bal diidi dacwatu yaa qawmi la oran jiray khasaare dhinaca ka keentay marka dadka Soomaalida waxaan ugu yeedhaynaa kitaabka Alle sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhiiga maanta daadanayo sheekhu teegayay
ودقالكي كدعي درارت دويد دور كورسون ونقضي دولات كسمايو محال لغا يا مانتا ددكي لا حقي هذين نبي محمد صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقاتل فقتل فقتلته الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وفق كنت قال لما تقال علن إندلا محلو ليه ده وحوي ميل وصل على قرن ماي أي محدود جدا علن كان يا علن كيلايكو أمرنا معك وكلنا معها ومركا أنتم تقال لما للديرو تلكي سوى تلكي جاهلية دي قبل الإسلام تلكي دعيو كلوي أصل أهان وحد وقاتا تقال كضدك مسلمين تدحروا دعاء وحل إلى هذا حرب فتنة تقال كضدك مسلمين يقالد ويسكو قبطان أو جهاد كنا وحل إلى هذا جهاد بليل هذا مرهدوا تقال كدح دعي قبائل المسلمة أهل القبلها وحل إلى حرب فتنة وحصعد أو حرب فتنة لكن متبا يعني غريبة هيد وأقوبة هيد إن ما ركت ميش اللي ولا وين نين أنت اللي تديره إلا قبو وهذا أنا براه برشة لصور ديجو وحلاقة جري رعوده وأقوب سومالي اسمه قبي جرين وحيالا كلا سومالي بين الله وحكم إذا رجع كل الله يوم حنيه لقى مجوين جرين إلا محل قبيل بالغو شيء وكم قد جرى أنا وير بالغو شيء جري ما إنه نقان إن من كان شرس كأنه رمضة بقيت سومالي تمركي ككري وين جيروجي بقيت قدر حنيه أنت كجوي ما يسكسي دين جرين وفك مركا حنيه دي لقى جوي وقف سكدت توي بقول كيسين لقاتوي سومالي ذو معقول وحكلنا سومالي عان كوهين إن الجور عقفنا عان كماهين وحكلنا سومالي ذو حري كحشون جرتي برمجيد ده وعرورته وهوينك هذا جور عباد عين عرور بالله تتبال الجبي وجور ما ينجونا وصوت سنوي صوت سنة سومالي سقطاوي محينو كهلي مركا قبيل في واطق على الدولة دين الدويني محينو كهلي وحينو كهلي وكدحلي سيدو النبي صلى الله عليه وسلم مركي لبدا الإسلايين ومن أنصارها من وها مهاجري ويدعوها فإنها منتنة دعوها فإنها خبيثة كتجا وحوريوي كتجا قشن وحوي أو ليتوي محل ما تكلم مركب وحين هنا سومالي ما أنت وفقر بدن تاي والصبون سومالي ما أنت يوجد اللي بدن تاي والعنا يا مير كستر والله حسا سومالي ما أنت وقيم اللي دتا محينو كهلي عجيب جيفنا سومالي وحنا قتريب بنو إسرائيل وقالوا قلدي يهودي قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أدوك لما كفر عني محين فرحيي مصيبه rees saba oo kala noqonay waxaasan ka helay dhaxal maanta dadka Soomaalida nool oo jooga waliba gudaha Soomaaliyeed waa da'yar waa danyar waa fuqara maxaa marka xala waxa xala culimada intay fadhiga ka kacaanay dadka wacdiyaan waxan bal wuxuun hadii laga qaban karo la qabto sababtoo waxa socday waa qoorsi waa qabyaalad waa qulub waxa dhacayay dhulkii waa cidlo ayaa degi dhulka wax dagaal la leeyahay dhulkoo dhan waa cidlo waa dhaxmara meel Soomaaliya dhaxmara ayaa inoo camiri haddana waxa weeye hadaa tiraado yani jiingad yar ama waxaan bilitaan meel ka dhisi reebel ma odhanaya anaga leh maxaa xal ah xalka waxa weeye waa in la helaa dawlad adag in la helaa wadankan waa in loo helaa ciidan adag oo qaad cunayn oo sigaar cabaynin oo tukada haddii la waayana adi bacdu sharri ahwan wa bacd toddobaatankii laga soo bilaabo ninkii noolaa baa garanayay ilaa 80kii Soomaalidu kaadi bay isku sii deyn jirtay iska dhaafin inta isku duulaan isdilaanay waa la kala baqi jiray dawladdu markay dagaalka gashay bacdigeed bay arrintan timid markaas farxad ku yimid oo hubkii iyo wax la kala xaday nin Soomaaliyo nin dilay ma jiray hatta kan ilka shanaad waa la baqi jiray waxa la oran jiray dharcati maxamed siyaad barra wadanka ku jirta nin ma dili jiray waxa loo baahan dawlad adag oo ciidan leh dawladda hadaad aragto wayna ciidan adag hadana ciidan lahayn la qiimata u fiirsada gaalada duwalka maanta caga juuleynaya ciidan bay haystaan hub adag bay haystaan waa in la helaa marka ciidan adag waa in la helaa
dadkan wax kale celiyaa loo baahan yahay haddaan waxa weeye dadka soomaalida ingiriiska wuxuu yidhi saddex shay soomaalida xaggooga ha ka marin waxa weeye waa gaal waxa weeye maxaan ku dhahay soomaalida tajribeeyey wuxuu yidhi ina adeer waa qabiil geel wuu ku dagaalamay ninka soomaaligii diin saddexdaa waa ku dirirayaa saddexdaa u daabuuli waa ka agmarin geela haddaa usuutu wuu ku dhiman diinkana waa ku dhiman ina adeerna waa ku dhiman waa qabiilka wey innaga marka soomaaliya haddaynu nahay qabiilka iyo diinka islaamiga ah midkee xoog badan haddaan na weydiiyo maxaad u aamusteen qabiilka xoog badan ولذلك الرسول حتى أنت سوق قديس يقول وريا مسلماي أيا مسلماي أيا مسلماي يدو يلاهو ورمحا كن عايب على ورانيا لكن يدو يلاهو طلع أيا ريه بلاي أيا ريه بلاي يدو يلاهو وريا للسو ياعي يبدت صوت الريه بالكعدك وأنا أريتك يا نيسا تقال كان أهلي ينو جوك سنوايو فاتقوا الله ما صدقتم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم